كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركي بقول كنتوني أفراد قيبتي صدحات أبدكي إنترنتك casharadii marka aynu kaga waramaynay caafimaadka internetka sidoo u saameeyay ama xanuunada u keenay xanuunkii ugu dambeeyay ayay marka ku jirnay waxayna waa balwada internetka. waxaynu eegi doonaa hadaba bal hadda dhibaatada hadii qofku 8 su'aalood soo sheegnay oo de 5 kamid ama 6 kamid uu iska helo dhibaatooyinka uu keeni karo internetka waa maxay marka nafsadiisa marka waa maxay uu keeni karo. wuxuu keeni karaa waa la yiraahdaa macnaha qofkii inay ku dhacdo wax la yiraahdo insomnia and sleep disorders marka ama al-araq wa idribat no macnaha qofka in hurdo xumo ku dhacdo ama qofka in hurdo yaraan ku dhacdo taasoo marka keenaysa xiliyadan faraha badan iyo qofka waxa internetka isticmaalay marka waxay keenaysaa qofka inuu seexan waayo qofka inuu hurdadii waa maxay ka xumaato taasay keenaysaa marka. laba hadii xanuunka balwada internetka uu qofku waa maxay uu qabatimo waxay u keenaysaa inuu markasta ku dadaalo qofku ama uu raadiyo inuu macnaha keligii waa maxay meel fadhiisto waxna waa maxay inuu keligii waa maxay mobilka yar iyo isaguna inay keligii waa maxay ay isku madax banaanaadaan oo markasta uu keligii aanu cidna aanu u dhawaan asxaab cidna markaan waa maxay aanu u tagin. taasina waa waxay marka de keenaysaa waa maxay iyaduna waxay keenaysaa marka qofkii niyad jab ku keenaysaa qofkii walaac walbahaar waxa ku keenaysaa. ta kale waxa la yiraahdaa dhibaatada balwada internetka keenaysa waxa weeye baa la yiraahdaa fuqdaan qudrati ala tarkiis macnaha focus qofku wuxuu focus ka saari lahaa sana qofka haduu wax barasho baranayo wax barashada qofka waxa focus ka ma saarayo macnaha waxay ku dadaali maayo qofkii uu shaqeynaya shaqadii qofkii waa maxay si fiican u qaban maayo qofkii salhaan u badiyo caruur baa u jooga reer baa u jooga soo moolka ugu jeedo halkii laga rabo inuu focuska ka saaro family dadkiisa ku dadaalo waqti ku bixiyo hadii balwada internetka uu leeyahay taasa marka tarkiiska waa maxay meesha waa maxay ka baxaya marka xoog wuxuu saarayaa wada internetka marka. ta kale dhibaatada afraad ee u keeni kartaa waxa weeye baa la yiraahdaa macnaha danayn la'aan waxay u keeni kartaa iyo waa maxay walaa ubaala wax leeyahay macnaha waxay u keentaa qofka waxba aan u aabayeel marka macnaha walaa mas'uuliyad ba qofkan saaran aanu dareemin ama walaa cid ba maxay ka sugaysa ama cid waan qofka waa maxay waxay u keenaysaa mas'uuliyad la'aan waa maxay isagii moolka saasun ama technology-ga waxaas gacanta ku hayo ay qof marka waa maxay ku mashquulaya marka. qodobka shanaad ee dhibaatada u keeni kartaa waxa weeye qofku inuu dareemi waayo macnaha waqtigu wuxuu yahay iyo qiimaha marka waxa waqtigu marka uu ku fadhiyo marka uu leeyahay isagoo marka waxay sida uu isticmaalay internetka markuu balwada soo gaaro faa'iidadii iyo wixii uu ka faa'iidi lahaa ama wuxuu wax ka qabsan lahaa oo dhan adduunyada ahayd ay meesha ka baxaysa hadii waxaas meesha ka baxaana waqtigii qiimihiisa dhan waxa qofkaasi uu luminaya marka kuwaas waxay ka mid yihiin ilaa 5 qodob oo qofka waa maxay u keenaya macnaha maxay balwada internetka u keenayso. hadaba saasha u dambaysa waxa weeye hadii aynu soo niri qofka 7-9 cudur ba qofkii uu caafimaadkiisa u sababaya oo tan idmaanka ama balwada ugu dambayso xalku muxuu noqonayaa ama qofku soo ugu hortagi karaa xalku isagana ilaa 7 ku soo koobi doona. qodobka horta koobaad waxa weeye waxa la yiraahdaa horta wixii waa waxaan laga maarmayn oo de internetka qofku waa kan isticmaalay qofku waa maxay internetkii ama qof yar ha noqdo ama qof weyn ha noqdo waxaan marka laga maarmayn laakiin markasta waxa muhiim ah la yiraahdaa qofku inuu iska xakameeyo iska yareeyo soo iskaga yareeyo marka waxa kamid ah baa la yiraahdaa horta mawaaqicda waa maxay faraha badan qofku isticmaalayo macnaha inuu marka uu ku dadaalo intuu ka takhalusi karo oo iska deyn karo inuu waa maxay iska daayo marka. koobaad waxa weeye baa la yiraahdaa macnaha inaanu marka aanu qaybtii waxay ku xiran tahay marka tarkiiska inaanu qofku aanu isticmaalin macnaha de mid wax ka badan salaam waxaad furaysaa mobilkii oo kale de Facebook baad gashay marka Facebook aad isticmaal
macnaha meelo kale hashii aad aadin maanta ama meelo kale hawad wareegin waqtigu waa maxay mid ku dhiyaa marka Facebook ku jirta aad ka daashid haddana hadaad application kale aadid waqtiga Facebook ku bixisay waqti ka badan masnuu sii baahan yahay haddana YouTube aad sii aad waqti ka badan moo sii baahan yahay marka waxa la markaad galaysidba macnaha ku talagalay inaad hal mid xoog aad ku jirtid markaa ka kale waxa weeye baa la yiraahdaa macnaha waa in markaa aad u jira markaa xiliyo markaa break ama waxa la yiraahdaa qofku waa maxay de nidaam waa inay u leeyihiin markaa macnaha xilligu isticmaalayo waxaan xilligu waqtiyadu isticmaalayo week intuu isticmaalayo maalintii intuu ka isticmaalayo macnaha waxaas qofku waa maxay waa inay markaa waa maxay ay ugu jiraan sidoo kale waxa la yiraahdaa waa maxay iyada muhiimka ah marka uu isticmaalayo waxa jira notification yar qofku ku xidhan karo sanad saacad ugu talagalay saacad markay gaadho baalkii ku qaylinayo tusaalahan oo kale inuu sidaa u isticmaalo marka oo ugu talagalay marka aanu soo gelinba warta waxaan saacad ku jiraysaa maalin baad waxa isticmaalay saacad baa ama 2 saac ama 30 minute application ka isticmaalaysaa xagee tagaysaa saas waa qofku uu nidaamiyo ka kale waxa la yiraahdaa qofka ka saacidi kara balwada internetka waxa la yiraahdaa qofku waa inuu macnaha uu sameeyo exercise macnaha inuu riyaadiyad waxyaabo kale uu sameeyo macnaha noloshu ma walo kaliya inay ka noqon hadduu wax baranayo waxbarashadii ay u raacdo waxyaabo kale riyaadiyad kale ay u raacaan ama exercise hadduu qofna yahay dee kubadiisa ay jeemkiisa waxyaabo iska eriyada marka waa maxay haddii kale oo qofte waa maxay uu hal meel ku kooban yahay ama hal shaqo kaliya waqti badan soo haraan inuu isku dayo qofku inuu opportunity ka xabo kale marka uu raadin karo marka haddii qofku guriga joogo oo kale ama family yahay inay isku dayaan waxbarashada xoog saaraan qof guriga joogo hooyo guriga joogto waxaad arkaysaa moolun ku jirta ciyaarkii qaaraha midaka hurdo midakan cunto raadinay midaka macnaha waa maxay in waxaasna manage garayso oo qaar mar waa maxay maray wax akhrisanayso mar wax diyaarinayso inta ay noqoto ana waqtiga ugu dhan ana guriga chance-ka fiican ay hayso dad badan aan haysan ayaa uga faa'iideysato takale waxa la yiraahdaa qofku iyada muhiimka waxa weeye uu kaga bixi karaa balwada waxa weeye inuu ku dadaalo xiriirka u dhaxeeya isaga iyo qoyskiisa family-giisa dadka u dhow inuu markaas isku dayo iyaga waa maxay ku dhex jiro iyaga uu la hadlo iyaga marka waa maxay waqti la qaato marka haddii family-gi iyo qoyskii meesha ka baxaan meesha maxaa imanaya mawlkii baa imanaya haddii mawlkii yimaadaan dhibaatooyinkaas oo dhan baa dhacaya marka ta kale marka ugu dambaysa waxa weeye oo iyada marka aynu u baahannahay ku soo koobaya waxa weeye haddii qofkii de waxa soo dhibaataa isku arko daal badan isku arko qofkii warar badan isku arko walaal badan qofkii ku yimi qofkii tarkiiskii family wixii dhan ka dhex baxay meel gaar oo kaliya fariistay macnaha wax exercise waxa ma sameeynayo waxa soo dhibaataa qofkii isku arkay de qofkii marka iyadan si eegto maaha waxa weeye inuu marka waa maxay musaacada ama kaalmeyn marka inuu raadiyo oo ka raadiyo marka de qof marka dhakhtar ah marka uu tago ama marka waa maxay uu la taliyo marka ama waa maxay inuu tago dad asxaabtiisa uu la tashado saasoo uu sheego marka ugu dambaysa waa maxay aynu ku soo koobanaa iyadana ugu wanaagsan waxa weeye la talinta markay noqotay waxyaabaha soo dhan inuu qofku markasta ku dadaalo inuu waqtigiisa uu ku camiro waqtiyada firaaqada hay markuu wax qabanayo macnaha inuu quraanka akhriyo macnaha qofku waa maxay inuu xadiista barto macnaha qofku waa maxay inuu qofku dhikri badan sameeyo inuu waxa soo dhan sameeyo ayaa ka saacidayaan waxa soo kaga filan hal dad maanta la wardi quraan aad leedahay waxa soo ay sheegnaa marka wax isma arkaysa ma badan isticmaal meesh waqti aan ka hadlo maayo dad maanta halkiisa akhriyad bish wax dhameynaysa saddex shan ka baad soo ka dhameynaysa ma inta ku filan had marka salaadaha si fiican xiriir u tukatid shan salaad tukatid waqtiga ku nidaamsan marka xaw ma baahnid marka inaas aynu ku soo koobeynaa halka waxaan ugu dhamaatay marka aynu 10 cudur aynu ku sheegnay dhibaatada dadka caafimaadka uu keeno 10 cudur mid kasta waxaan raacinay sida looga hortagayo iyo xalkiisa wuxuu noqonayo inaas aynu ku jirnaa wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa